asxaabey hooyadan aa u jeediin waxay u dagaaltamaysaa ilmaheeda qofkii hayn lahay marka iyada dhimata kadib gabaran iyadoo xanuunsan oo lagu sheegay kansarka pancreatic cancer la dhahayo oo beerka galo marka jirkeeda kalena uu kusii fidooyaa marka xubnaha kale oo jirkeeda kusii fidooyaa la dhahay marka waxaa la dhahay waqtigan walaanays waqti dheer ma ahan ilaaha horta nolosha hay laakiin waxay dhaheen dhakhtaryaasha wax badan ma noolaanaysid ee dhaheen marka iyada hadda waxay u dagaaltamaysaa ilmaheeda qofkii si fiican u hayn lahay adeerkooda mise aabahooda hooyo iyadoo sakaraad weli waxay usii fikireen markay dhimata kadib ilmaheeda qofkii hayn lahay hooyo marka waa kaas saas waay marka aan u gudagalno qisadeena cawada subscribe halii saaro subscribe haddii ii saarti maxaa ka halaaway walaalkee iyo walaashay رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا سيتين وفي عنتين أنا كوافي عنها إذن كانوا حاني رجينا سيدا سيسي كفي عن إن شاء الله يسود دواد هاتي إيو عسوبتهين سبسكرايب كإلى مودنا وأنا إي لايك جري لايك تانو جيدين صدقني قف fiirsa horta alaaka ii saarta insha Allah qisadeena u guda galeena marka maanta gabarta qisada ay ku socoto magaceeda waxa la dhahaa Andrea marka waxa qabi jiray nin hore laba cunug ay u dhashay marka labada cunug markay u dhashay kadib waxay dhahday ninkii waa kala tagnay sababta ugu tagna waxay ahayd dhahday nin been badan oo ahay oo ma shaqeystana deadbeat dad waxaa la dhahaa aabayaasha oo ilmo kala jecleen oo ilmaha dayacaaya oo ahay markii wiil iyo gabar ay u dhashay markii uu dhalay kadib waxay dhahday ninkeeda hore magaciisa waxaa la dhahaa Rick waa kanaasabkiisa marka waa ka tagay dhahday 9 bil joogay 9 bil markay joogto kadib waxay heshay nin kale oo la dhahaa John ninkii aroostay marka had 8 sano asqabnaay dhahday 3 cunug kale dhashay 5 cunug ay saas ku haysataa marka aabo fiican oo u noqday aabo booskiisa u galay ilmaheegii hore iyo 3 kale asaab dhalmo marka 5teeda cunuga saas ku haystaa dhahday hadda marka iyada waxay dhoosaa waxay joogtaa maxkamadda waxay dhoosaa waxaa ku dhacay cudur laba sano saan ku haya cudurkan waxaa la pancreatic cancer la dhahaa beerka marka dhakhtaryaasha waxay dhaheen qofkii oo noocan ku dhaco stage-kana gaaro waxay u badan tahay intoo dhimanayo 1 sano oo waxay siiyeen haystaa dhaheen ilaaha og waqtiga dhimanays laakiin dhakhtaryaasha saasay dhaheen marka iyada hadda maxkamadda waxay u joogtaa ilmaheeda intii marka iyada dhimata kadib meeshay joogi lahayn ee ka murugoosa hooyo waa taas hooyo xaqeeda ma la gudi karo markii lagu dhaa iyada xanuunsan si u ooynays waa naxay wallaahi ilmaheyga ee dhaheen markasta haddii ilmaheyga meel aan ku hubsado markaasiti nafteeda way neebsanee marka maxkamadii waxay leedahay ninkeyga aaba fiican oo uu yahay ilmaheyga asaa soo koriyay 8 sano hay iyagoo yaryaraan isguursane marka ninkeyga intoo ii haayaa rabaa sharciga haddii loo baxona sharciga haddii ani dhinto wuxuu siinaa aabahooda kan oo dhiiga la siinaa dhiigana aabahooda isku dhiigyihiin ilmaha marka waxay dhaad ilmaha inta iga dayacmaan ma rabi ninkaaneti naftiisoo meel u la-yahay ma shaqeysto waaye 1 sano gudihiisa wuxuu 14 meel oo shaqo ka gal waa laga soo guriyay ma shaqeysto waaye daroogiista waaye ilmo wax ma ka ogo hadda anoo haayo ilmihiisa xataa soo fiirinoonin oo soo salaamoonin marka haddii oo ani dhinto oo cunug ilmaheyga si la siiyo
ilmahey way dayacmayaan markasta habeenii maalin intaasaa ka fikiraa ninkii meeshuu fadhiyaa si ninkii oo qabi jiray horti wuxuu dhahay ma ilmaheyga anaa qaadanay iyadoo waxay dhoosa xataa asi haddii la ii caabiyo oo meesha oo rehabka oo dadka oo dhaqan celiska la ii geliyey oo waxaaneeti daroogadan iyo laga dhaqo iyo balwadan xun ilmihiisa oo caadi u noqdo anima u diidani ilmahey qof ii haayo fiican lay rabaa laakiin adeerkooda aabo fiican u haddaba intaan asaa ii soo koriyey adeerkiina wuxuu dhahay aniga hala ii dhiibo marka kan aabihii kalena wuxuu leeyahay ani hala ii siiyo marka waxaa la dhahay idinka dhan inta maxaa u fadhiisiin ilmahaas dartood maahu haa marka labadii ninaa lasoo xijiye horta idinka isgacan qabtaa la dhahay shaqadan waxay u taalaa labadiina waa isnacbannahay iyo mis arki karni waa iscaynaynaa iyo haddii dhahdiin ilmahaas le dhib u keenaysiin marka labadiina isgacan qabta yaa adina waxaa lagu gelinaa meesha oo rehabka oo dhaqan celiska waa lagaa soo dhaqaa daroogadan aaba fiicanaa lagaa dhigaa ilmaha u toos haddii u toosays adile kuu taalaa leh ninkaneetina nolosha ilaan 8 sano soo korinay noloshiisa ka gooynin labadiin isla jira isla koriye ilmaha isgacan qabsada leh marka hooyadin way faraxday way ooysay waxay dhaadan ilmaheyga murug igu dilo marka ani dhinto intee seexanayaan yaa ilaalinayo aabahaneet asibtiis u yaaban qof oo tusaale fiican u noqonayo male qof oo wax intuu baro oo jidka ani maray soo mara oo dhihi kara male ilmihii noloshooda fiicneed hal mar intii la fudgadiyo oo qof oo wax matare loo dhiibaa diidanahay ninka aan u jeedin shaqo ma ilaalsan karo hal sano gudihiisa 15 maraa laga soo guriye hadda anoo ilmaha haayo oo asi co-parent leh markaa la soo fiiri soo kormeer ilmaha kor lay ku ogaaw la dhahay oo wax ogeene aan kartida lagu doodo ma fahanteen marka maxkamadii waa dhageysanoo labada dhinac mugtay marka waxaa la dhahay labadiin horta manin ka maarmaan ilmahan labadiinaba adig waay aabahoodaatee dhiigoodaatee adig waay waa soo korisee aabahooda wax ma dhaantid marka waxaa roon intii labadiina oo hal qof haay ma ahe labadiin intii laisku keeno gacmaha isqabsada waxaa maanta laga bilaabo waxaa tihiin BFF best friends saaxiibada dadka iskugu dhow aatiinima ma iscunaysiin ilmahan labadiinaba weyniin baahan yihiin alle marka hooyadii way faraxday hooyo iyadoo sakaraad xataa ilmaheeda kasii fikiree marka hooyo la-aanteed abaar waa ilaahay hooyo la-aan mana dhigo marka hooyo intaanaan la jeclaada markii qisada arka zaa'ida ii taabatani marka waxaa isdhahay kaalaba asxaabtii ula wadaag marka dib intaan soo gaarteen ilaahay khayr haniisee subscribe hal ii saaro subscribe-ki meeshii soo fadhiyaa baan like gareynaysiin mana share gareynaysiin I don't know wixii ninku suubinay marka qisada hadii u aragteen kasoo farceliski idinka ninka sugaa qisadeen intaasay ku eg tahay bye bye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye